casharkii tibinta tooska ah ee waxbarashada online. Right, fasalka subject maadada waa English, data waa waxa weeyaan vocabulary, subtitle-keedu waxa weeyaan words and their meaning, waa kelmadda iyo macnaheeda. Grade was 6, fasalka lixaad, unit 16 waa cutubka 16. People school page 28 waa buugga ardayga page-ka 88. Number 1, land, ground used for building or farming. 2, happen, to take place. 3, electricity, energy used in lights and machines. Field, a place to grow crops. 5, shed, a small building for animals. Vocabulary, subtitle words and their meaning. وكلمات iyo macnaheedu. The land waa dhul, waa ground. Waxa loo words and their meaning. وكلمات iyo macnaheedii. Land waa dhulkii, ground waa la macne. Waxa kale oo la macnaa ground, earth ayaa la macnaa. Kelmadani macnaha way leedahay iyadoo feer kala waxay noqotaa green waxay noqotaa markaa bed, laakiin marka waxay la macno tahay ereyga land oo macnihiisu yahay dhulka. Land, ground and earth saddexdaa kelmadood waa isku macno, macnaheedu waxa weeye waa dhulka. Happen, what's happening over there? Happen, what take place. For example, what is happening over there? What is taking place over there? Happen, you take place, same meaning, what's mine? Or happen one at a time, take place one at a time. Well, what's happening? What has happened to you? What has happened to you? How old are you? Electricity, Toronto, on the light. Electricity, Toronto, on the light. Where energy, what used in lights. Like and machines, electricity or energy, what used in lights. 15 minutes machines, machinery. Feel this word has different meaning. Look at what like in this lesson, I feel waxaan ku jirtaa waa page-ka ee buugga fasalka lixaad ee luqadda English-ka. Field waa place, waa meel to grow crops. Meel waa beer, waa meel bannaan. Field waa meel bannaan. Ereyga field macnaha maad leedahay oo waxay noqotaa waa isku field. wasaaraddaas waa isku field ama shaqa ka dhaxaysa. Shed waa maxay? Waa xanaya oo loo sameeyo animals. Small building waa dhismaya for animals oo loogu talagalay. Waa small building waa dhismaya for animals oo loogu talagalay xayawaanka. Inta insha Allah waxaan isugu doonaa layska. Assalaamu calaykum.